Hey, y'all, come look at this. jidadkan la xirayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad ii doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtii waaweynay yaan gadaal ka geli waxaan ka afeefanayaa marka aan taariikhda iyo research ka hadlayno dad gaar ah uma jeedo xurashada SSC ee khaatumo dawakaadiriintii kacaanka ninkii illa shub ninkii lugla shub ninkii gacan la shub dhaqaaji had ha cariirin ilaa way luglaa waa la lagama rabo in marka waxaan leenahay kafa war ku joogsada meeshii waxaan leenahay stop خط أحمر هاي أرنتا we never accept that never ever والله هديسن جوجين وبحنا لن نقبل aniga dastuurka Soomaaliya waxa ku taal qofka marka la doorto waqtigiisu waa 4 sano madaxweyne marka la doorto waa 4 sano hadda 2 sano joogay labadii kale iga gooyo talo dadka Soomaaliyeed waan ka raali gelinayaa inuu weyn ciidamadu ka dhacda khaladkuna waa la ismoodsin karaa igu tuurade markii hore ciidamada waa ay igu tuurteene igu tuura anigu siyaasad dambena kuma jiro ballan waxaan idinku qaadayaa meel kastoo Soomaali joogto inaan idinku imaado waan idinka raali gelinayaa I love Muqdisho xalna waan siinay وفريستي فرماته وفريستي فرماته وفريستي كرك على قتال في كريوه عبد كرينو أرجع مركز الله أركو وحتى إنن أبو أمسن لكن إنن أبو حكمة بدن سما هذا ما رمت هذا marka dambe calaamad weeyo oo cabdiin saadin u taqaanid iyo sida dadku ku yaqaanaan way kala bedelan yihiin Kismaayo markaan soo galaynay waxaan wadanay meed iyo dhaawac nin markaa Starbucks fadhiyo kafe cabay oo aan garanaynin waxa lala soo maray iyo waxa jiray inuu maanta ilaa wadanka oo dhan raad baan dib ugu celinaya waa ayaan daro dawlad yar baan ahay kursigaygaasaan haystaa meeshaan doonaan la mari heshiiskaan doonaan soo gelayaa meeshaan doonaan xoolo u doonanaya islaan uunsan jirin hadday uunsato meel ay ka guban jirin ayay ka gubataa waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay gudoomiye su'aashayda ha ka jawaab madaxweynuhu meel kale marayaa hadal mareed mudane hadalka mareed aad weydiisay waad aamusaysaa nidaamka dawladnimada haddaadan raacin mas'uuliyaddeeda adaa qaadi doona dawladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu addimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayey mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowga dawladdan ay dooratay in aan ku dhaqdo annaga dad badan oo culimada kamid ah gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisatul aqli wa diin aqliga iyo diinta nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada falsa ah oo meel ay ka yimaadeen aysan jirnayn kitaabaha jawaab kala soo baxaan bisadaahdiisa maanta waxa ka nasiib badan qofka muqdisho ku nool kismaayo dagaal baa ka socda xamar dagaal baa ka socda
oo dawladda farmaajo labadii madaxweyne ku xigay maalin walba way xidhaa waad arkaysaa halka la isla maraya iyo qaraxa ka taagan dhuusa mareed dagaal baa ka socda puntland baa wadayso wata maanta la qarxiyey waxaana wadaa dawladda farmaajo ee waxa soo taageerada siiyey ayaa fidmadaas oo dhan wada oo markay intaasoo dhan ka dagaalamaysa waxay ka wadaa waxaas waa tababar kuwa ku soo tababaraysa oo ku soo diyaar garoobaysa Soomaaliland bay soo diyaartay colaadeeda oo ay ku soo maqan tahay Soomaalilandna waa ku gaamurtay inay cadawga iska xiriso diyaar baro waa aragnaa waxa soo wada farmaajo waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii muuse way soo dhamaanaysa ila meeraysadii way soo dhamaanaysa ayuu waxa weeye caalamku waa laga cunaa Soomaalida u baahan damana maanta dambaysan caalamku waa laga cunaa marka ayuu siisaba xunna hadda taanu waa xunna waan tajrubaynay hadda manamana waan shiilnay sida manaha aad ku arkayseen baraha bulshada marka shiilana waa maxaan ku radaa waa ku qadaynay waan ku quraacnay